waxaa maalmihii ugu dambeeyeyba laga deerinaya xaaladda xabaalaha sogsogle ee ku yaala duleedka galbeed ee magaalada waana hoyga dhabta waxaana aad u saameeyey roobkiis dabajooga ah ee maalmihii ugu dambeeyeyba ka da'ayay magaalada Boorama maamulka degmada Boorama iyo ka gobolka Awdal iyo sidoo kale culimadiinta magaalada oo iskaashanaya ayaa maanta waxay si wada jir ah xabaalaha uga mooseen biyaha daadka oo dumiyay xabaalo badan maamulka degmada Boorama iyo ka gobolka Awdal ayaa xabaalaha waxay maanta si rasmi ah ugu wareejiyeen guddi culimadiin oo hadda wixii ka dambeeya oo xil saaranaan doonta nidaamka xabaalaha oo hadda uu dayac ka muuqdo waxaana barbilow halkaasi ka hadlay mayorka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxayna la dardaarmeen guddiga hadda wixii ka dambeeya gacanta ku hayn doonta nidaamka xabaalaha sogsogle ee ku yaala duleedka iyaguna bulshada kala duwan baaq u diray doonaynaa inaan dhaata sax helno xabaalahana qorshaan u sameeynay barasaabkii maanta halkan jooga oo ku sugan waxaan u sheegaynaa dadweynaha xabaalaha hadeed inaan u sameeynay nidaam oo aanu jiri doono qof la iska aasuun ilaa la soo diiwaan geliyo mooyaane gudida culimada roowda ayaan ugu tala galnay kadib markaanu shir galnay inay hawsha iyagu maamulaan oo ay gacanta ku qabtaan haduu Ilaahay dhaado culimada kalena cidii hawsha dar Ilaahay baa hawsha looga shaqeynaya cidii dar Ilaahay wax ugu darsanaysa ku waalidkii dhintay ku walaalkii dhintay ku ehelkiisu dhintay ku Ilaahay dartiiba ula baxaya inay halka kula xisaabtamaan oo berri ka maana xabaaluhu markay dhamaadaan la oran halkeen wax uga iibinaya lacagtu inay noqoto mid lagu maamulay way xawaashi wax la qaada $100 mar alla markay dhamaatana xabaali way dhamaadeen baa la yiraahdaa waxa khasaba dadkii guriga la dhigan ma in xabaali la iibiyo nadaafadeeda nidaamka waxa laga rabaa dawladda hoose inay nidaamso xafaarinta inay ka warhayso in la diiwaan geliyo qof kasta oo meesha la geeniyo oo xabaasha lambar la siiyo oo maalinta adoo dibadda ka yimid tilaawar aabahay halku ku dhintay diiwaanka inta lagu ogaa 135 baa aabahay oo dabeedna aad soo hesho xabaasha aabaha faataxada marto ayaa looga baahan yahay iska habqan baan iskanay runtii waa ogtiino xabaalo maalintii la iibiyo banaan bay ahayn maanta isla amirmeen waa arkaysan waa meel aynu ku soo soconno waraan magaaladeena cusub aynu degayno waa deegaankeena rasmiga ah aan hagaajisano sidaas lamada waxa dhankooda halkaas ka hadlay qaar kamid ah culimadiinta magaalada Boorama ee hadda wixii ka dambeeya gacanta ku hayn doonta nidaamka xabaalaha xabaalaha hagaajintooda waxaan doonaynaa insha Allah taala ka masjid ahaan in masjidkaasi hoos yimaado oo nidaam loo sameeyo nidaamkaas oo Asia nidaamyada loo sameeyo qofku markuu dhinto nidaam buu yeelaa 10 sano ka hor haduu dhintay waa la ogaanayaa hadduu bisha dhintay waa la ogaanayaa Allah in buu leeyahay insha Allah taala oo nidaam leh kulli xafladan baan qaban doonaa ummadda asku yeeri doono oo laga hadli doono oo ku faahfaahin doona qaabka loo shaqeynayo oo qofka ambulance baa loo sameeyo doona hadii la yiraahdo waxa la kiimeeriya loo sameeyo doona nidaam baa loo sameeyo doona qof kasta oo meesha ku dhinta hadduu 10 sano la soo dhinto si loo ogaado nidaamka insha Allah ku shaqeyn doona nidaam farax geliya oo ummadda qofkii waalidkiisii dhinta ku farxo oo arko maanta dibta jirto arkaysiin marka waxa weeyi dadkan horta dhulka qodaay dhulka weyna dileen wayna ka dhaqdeen malaad jaadun bay ku cunaaneen haday dibi ku iibsadaan way iibgeyn kari lahaayeen waa qabriga 100 baa la siiyaa kolkaas la yiraahdaa waliba inuu hulka qota saasa marka dadweynuhu horta u wareeray si waa la soo xidhaa uu garwaa dadweynuhu u wareeray marka waxa way Soomaalidu ka dhawaajiyay waxaan ku raacsanahay in masaajid in laga maamulo masaajidada meydka laga maamulo aaskiisa iyo diiwaan gelintiisa iyo nidaamkiisa iyo lacagta wax lagu iibinayo marka adduunyaduna waxa nidaamka kama soo hadho waxa maamulka la yiraahdo nidaamka loo dejo adduunyadu kama soo hadho laakiin shardabar dhaqan la cararayo una walba meel qodanayaan walba hadii aad inaga haddaan waxa ka waantowno oo khayr la siiye aad inaga nidaamsan annaguna haddaan dadweynahay hadii odayaashan nahay aad baan u garab galanaa meel muhiim oo aad iyo aad mar horena horta way ku dhacday arintaasi waa la moosay haddana markii labaad biyaha badnaa imikana way galeen qaybaha hoos oo dhan aad iyo aad bay u galeen insha Allah taala waan hal dadaalo oo arintaas laga wada qayb qaato ma banaanayn masquula laga dulqoto sidaas oo kale in daadka iyo dayacada loo daayana ma banaano waa sida ay mas'uuliyiintu maanta barasaabkii iyo maayarkiiba way joogaan ay uga shaqeynayaan wax uga qabteen ayaa haboon waxaan joognaa sugsugley qabriyada daadku dumiyay waxaan u mahadnaqanaa
masaajidka harawa kulley culimmadeedii ka kacday kulley inunbaa biyo socdiya biyo fadhiya kuwa socdo biyo fadhiya biyo socdaa kiciya kulley jasaakum iyagana khayr allah ka siiyo laakiin biyihii baa galay way duntay inta ugu badan waxay ka dumeen ciilka halka qof ku jiro ayay markaa ka dumeen halka markaan ka baxnay waan tirin kari weynay adiyo dhowr iyo 10 qaar dhowr iyo 20 bay ku sheegay laakiin inta indhahay ku arkay dhowr iyo 10 bay ahayd gudaha markaan u sii galayna waxaan aragnay xabaalihii caadiga ahaa ee xabaalaysan aan sii dhex marnay iyagana marka la dhex maro waxa dunay qaar badan markaa way dumeen ayagu markaa aan la dareemaynin markaa dhex socoto waxa arkaysa xabaal iska degtay waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Real TV Boorama.